dhacdadii naxdinta badnayd ee 1972 tartankii Olombikada ee lagu qabtay magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaa lagu casuumay inuu ka soo qayb galo dalka Israa'iil halka codsiga Falastiin laga diiday taasoo ka cadhaysisay mujaahidiintii reer Falastiin. Waxayna go'aan ku gaadheen inay tartanka ka qayb galaan qaab iyaga u gooniya. Israa'iil waxay soo dirsatay wafdi ka kooban 9 laacib iyo 2 istaaf oo ammaankooda suga, halka mujaahidiintiina soo dirsadeen 8 naftii hore oo wafdiga Israa'iil nolosha dhaafiyay. Markii hore 10 naftii hore ayaa loo carbiyay laakiin tababarkii adkaa ee kooxda lagu soo siiyay dalka Liibiya ayaa 2 ka mid ah ku nafwaayeen. Qaabkee Jarmalka lagu soo geliyo hubka waa su'aal la isweydiiyo. 24 August 1972 Abu Iyaad oo loo xirsaaray isku dubridaha qorshaha ayaa ka soo degay garoonka Frankfurt ee magaalada Munich isaga oo ay weheliyeen Cali Abuleen oo ahaa nin qadiyadda Falastiin dhiig badan u shubay iyo gabadh iska dhigaysay xaaska Abu Iyaad, halka Abu Daa'uudna uu joogay dibadda airport-ka si uu korka ugala socdo in dabagal lagu hayo Abu Iyaad iyo kale. Boorsada uu watay Abu Iyaad oo ku jiray hubkii lagu hawlgeli lahaa ayay ilaalada garoonka ku amreen inuu furo, isaga oo walwal iyo cabsi toona ka muuqanin ayuu furay oo uu tusay inay ku jiraan dharkii xaaskiisa oo kuwa hoose iyo buumayaalo badan. Intay fasaxeen ayay weliba raaligelin ugu dareen. Qorshaha kooxdu wuxuu ahaa inay qaab qarsoodi ah ku galaan hoteelka ay degan yihiin wufuudda ay ku jiraan kooxda Israa'iil, balse ammaanka oo si adag loo sugay ayaa qorshaha ka hor yimiday. Mid kale ayay degeen. Waxay go'aansadeen caawa seeqda dhexe inay ka dhacaan derbiga hoteelka. Markay derbiga ka daadanayeen wuxuu nasiibkooda ku caawiyay inay dhex raacaan koox Maraykan oo sarqaansan barxadda hoteelka dhacayay. Naftahoreyaashu way garanayeen qolalka ay Yuhuuddu degan yihiin, si degdeg ah ayayna u galeen. Dhowr ciyaartooy oo isku dayay inay iska caabin sameeyaan, 2 ka mid ah ayaana ku nafwaayay oo ku dhintay. Kooxdii waxay isugu geeyeen qol dhismihii ka mid ah waxaana isweerarka ka qabtay booliiska Jarmalka. Dhismayaasha ka sarreeyana waxaa la saaray koox shisheeyahana oo toogata naftahoreyaasha. Waxaa soo gaadhay wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka si uu wada hadal ula furo naftahoreyaasha, balse waxay u soo gudbiyeen fariin qoran oo ay ku dalbanayeen madax furasho haddii la sii dayn waayo ugu dambeyn 9 subaxnimo inay qudha ka jari doonaan dhammaanba wafdiga Israa'iil, taasoo ka dhigan fursadda ay haystaan Israa'iil iyo Jarmalka 3 saacadood oo qudha. Inay Israa'iil sii dayso 133 maxbuus oo Falastiini ah, in loo keeno 2 helikabtar oo ay kaga degaan airport-ka magaalada kagana duulaan diyaarad weyn oo ay ku degaan Masar. Waxay intaa ku dareen markay Qaahiro degaan haddii la sii dayn waayo maxaabiista ay codsadeen inay dhegta dhiigga u doonaan dhammaanba wafdiga. Dowladda Jarmalka ayaa la hadashay Israa'iil waxayse kala kulantay wejigabax weyn, waxayna u sheegtay inaanay wada hadal la samayn doonin koox argagixisa ah. 8:45 subaxnimo ayuu taliyihii booliisku ka codsaday horjoogihii naftahoreyaasha 2 codsi: inuu waqtiga u kordhiyo iyo inuu u oggolaado inuu gudaha u soo galo si uu u ogaado inuu wafdigu bad qabo iyo in kale. Labadaba wuu ka aqbalay, waqtigiina 2 saacadood ayuu ugu daray. Ujeeddada ninkaasi ma ahayn inuu maxaabiista soo hubiyo, waxay ahayd inuu soo ogaado tirada ragga hubaysan iyo saanadooda. Helikabtaradii ayay fuuleen markii loo keenay iyadoo la daawanayo, waxayna ku degeen garoonkii ay ka raaci lahaayeen diyaaradda xamuulka ah. 2 duuliye ee helikabtarta kala wada waxaa la sii faray markay dhulka taabtaan inay furaan albaabada si ay shisheeyahanada ugu fududaato inay midhmidh u togtaan naftahoreyaasha, balse duuliyeyaashu waxay ka amar qaateen horjoogaha kooxda oo isagu faray midkaa ka duwan. Markay caga dhigteen ayuu horjoogaha kooxdu degay, isagoo gacanta ku wata walxaha dayaama, una dhaqaaqay dhanka diyaaradda loo qorsheeyay si ay ugu duulaan si uu isaga soo hubiyo. Dhismayaasha garoonka waxaa lagu sii diyaariyay 12 shisheeyahan oo Jarmalka ah. Horjoogihii naftahoreyaasha wuxuu arkay in diyaaraddaba ku jirin duuliyihii kaxayn lahaa, wuxuuna fahmay in khayaano la degay. Degdeg ayuu uga soo noqday, balse intuuna helikabtartaba soo gaarin ayaa rasaas 4 dhinac lagaga furay sida roobka uga hortay. Ciise waa taliyihii kooxda ee markuu arkay inay tala faraha ka baxday ayuu helikabtartii ku dhex tuuray qunbuladda wax gumaada, waxaana halkaa ku nafwaayay dhammaanba maxaabiista Israa'iil oo ka koobnaa 9 ciyaaryahan iyo 2 istaaf. Waxaa kale oo ku nafwaayay 2 duuliye midkood iyo mid ka mid ah shisheeyahanadii Jarmalka. Mujaahidiintiina waxaa ka shahiiday 5 ka mid ah 8 naftii hore, 3 iyagoo nool baa la qabtay. Howlgalkaasi wuxuu ku soo dhammaaday fashil mug leh oo ka soo gaadhay dowladda Jarmalka iyo Israa'iil. Xagee bay ku dambeeyeen naftahoreyaashii marka? 29 Oktoobar 1972 ayuu Jarmalku sii daayay 3 naftii hore kadib markay koox Falastiini ah oo hubaysan ay afduubatay diyaarad kale oo ay lahayd shirkadda Lufthansa oo Jarmali ahayd, isla markaana ay ku xidheen sii deynta 3 naftii hore. Xorriyadoodii kadib waxaa ku casuumay dalkiisa Liibiya Muammar al-Qadaafi nafhornimadii geesinimada lahayd
iyo isbiimeyntii ay sameeyeen darteed.